qof kasto adduunka kadeedan wala dawfirs oo noloshu ka adag tahay laba meelood baa laga haystaa inta badan qofkaas baladaad u dhabagasho ama xagga cibaadada ilaahay buu ku liitaa oo xaqi ilaahay iyo cibaadadii baa loogu taaglaayay ama uu ku xun yahay ama xagga kale oo maxay ah qaraabada oo waalidku u horeeyo buu ku xun yahay labada qofka miduu ku xun ilaahay noloshu ku dhibaya isagana subhanahu wa ta'ala wala kadeedaya wala rafaadin xitaa haduu awlaad yeesho awlaada ilaahay ku salidaya subhanahu wa ta'ala kuwa faraha laga gubtay oo isagu faraku gabad uu ka yahay baa faraha loo gelinaya baahiye busaarad baa Allah ku kicinaya gebigiisu waa shoolad ba ka baxay caadi ma ninkaas labada sababood baana keeni kara rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam man sarrahu qofka ay ka farxinayso oo ku farxaya an yubsata lahu fi rizqiisa in loo waasibiyo oo loo ballaariyo ilaahay rizq waasi'a uu siiyo aw ama sayunsa lahu fi athari raadkiisa loo dibdhigo oo cimri dheer ilaahay uu siiyo الله كعبصده قرابتي سها حريريو فليصل رحمه رحمكي سو والد هو ريو حريريو والد كينا بارها ونقض سيدا اوغا بقف كاستا قفكا او والدكي اوغا باريسن يحي اما اوغا باريسنا اما اوغا قرابه فيعن يحي وكنو الفيعن وقبويه شيدا ما هيساتو حديث كاسا كفديو او عديني